الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد ولا ليال نبينا عليه الصلاة والسلام وياهن وحا isdaba socda miidiyaha in la dhahayo nabiga qabrigiisa la bixinaya meel aan la garanayna lagu doogaya war nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi yaa way qof intu qabrigiisa u dhawaado rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka nabiga intu u dhawaado qabrigiisa intu dumiyo oo soo bixiyo nabi maxamed yaa way qofka walaalaya aqeed xumada iyo baadilka oo website-yada lagu faafinayo iyo Facebook-ga walaalayaal hal laga daayo waxaasna ma sameey karaan dawladda Sacuudiga mana ku dhacdo walaalayaal inay sameeyso waxa weey nabigeena alayhi salaatu wassalaam ilaahay baa sharfay ilaahay baa ayiday ilaahay baa wuxuu gaarsiiyay meel bil aadanka la gaarsiinin buu ilaahay gaarsiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam ya rasuulka alayhi salaatu wassalaam ilaahay sidoo uu sheekay miyada arkinina ma nabiga alayhi salaatu wassalaam fadliga uu leeyahay iyo maqaamka uu leeyahay iyo manzilada nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam miyadana arkinina marka nabiga alayhi salaatu wassalaam dariixiisa la bixinaya ameelaha ku soo qoraysiin walaalayaal war ilaahay ka baqa war ilaahay ka yaaba war rasuulka sallallahu alayhi wasallam sharaftiisa iyo cisigiisa meel ha uga dhicinaan leeyahay dadka website-yada ku qoraya iyo dadka Facebook-ga soo share gareynay waxa soo kale walaalayaal in la soo share gareeyo ma baahan oo waxa weey diinteena iyo qalbigeena qulubteena wuxuu dhibayo oo waliba qulubteena ay gubanayso markii aan aragno waxyaalaha nabiga alayhi salaatu wassalaam dariixiisa la duminaya waxa qulubta ay diidayso way qofka mu'minka qulubtiisa way diidaysaa walaalayaal ilaahay aan ka baqno rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam taadiimkiisa iyo weynaantiisa soo ognaa moogi wax lidiga nabiga sallallahu alayhi wasallam walaalayaal isku ma ognin aqulu qawli assalamu alaykum